asalaamu calaykum kusoo dhawaada casmi spreadsheet academy goob lagu barto xisaabaadka gaar ahaan microsoft excel. fadlan walaal haddii ay tahay xilli salaad marka hore tuko salaada. asalaamu calaykum isku soo laabad wanaagsan. markaan waxaan u guda galaynaa cashirkii labaad ee microsoft excel beginner koorsadaas oo aad kala socotaan youtube-ka. cashirkan waxaan ku qaadi doonaa sidoo kale waxyaaba basic ah una baahan yahay ardaygu inuu ogaado inta uusan bilaabin isticmaalida microsoft excel. sawjida hadda waxaa halkan ka muuqda, hadda waxaan kaliya ku qorna waa number iyo waxa la yiraahdo reference. waxaan ku qori doonaa qoraal ayaan halkan ku qori doonaa, waxa inay tusi doonaa sida qoraalka loogu qoro. soo marka tusaalahaan hadda waxaan taaganahay column-ka A aan taaganahay, waxaan rabnaa inaan qoraal ku qorno. tusaalahaan waxaan rabnaa ku qorno qoraal tusaalahaan badeeco alaab school. soo marka qoraal ku qorto selkan dul imaato waxaad rabtaa ku qorto badeeco. soo marka adoon waxba samaynin ama click aan ku siin, markaad dul tagto ama aad doorato mouse click aad ku siido waxaad qoraysaa qoraalkada bilaabaysa. hadaan ku qorno badeeco tusaalahaan hadda halkan aan enter iraado waa ku qoray. soo marka wuxuu ii gudbinayaa rowga labaad ii gudbinayaa. halka waxaan ku qorayaa alaab badeecay alaab waa isku mid, laakiin waxaan ka rabnaa tusaale ama sambalan ka rabnaa. hadaan enter iraado hoos ayuu isoo gudbinayaa school. enter hadaan iraado hoos ayuu isoo gudbinayaa. sidaas ayaad ugu qori kartaa qoraalka microsoft excel. sidoo kale laga yaabay inaad ku qorto lambaro ama lacago. tusaalahaan 400 enter ayaad leedahay, 300 enter ayaad leedahay, 190 enter ayaad leedahay. waxaan filaa inaad fahantay qaabka loogu qoro qoraal iyo lambar microsoft excel. halkan waxaan ku qori doonaa qoraal kale aan ku qori doonaa kaas tusaale u ahay. halkan waxaan ku qoraynaa waxa la yiraahdo student id class sidoo kale waxaan ku qori doonaa total average. soo marka saa ujeedaan hadda qoraalka qornay. markaan qoraalka saa u qorno student id saa ujeedaan waxaa qarsan qayb ka mid ah. soo marka laga yaabo inaad wajahdo caqabadaas markaad isticmaalayso microsoft excel. soo marka caqabadaas sidaa u xalido wax weyn maaha. waxaad imaanaysaa column-ka dul imaanaysaa. saa ujeedin meesha u dhaxeeya c iyo d-ga saa ujeedin waxaa jirta diilin kala qaybisa. soo diilinta ee dul tagayda markaad dul tagto, marka calaamadu sidaa noqoto waxaad samaynaysaa left click ta riixaysaa, adoo leftiga haya ayaad jiidaysaa. markaad jiid saa ujeedin oo dareemaysaa inuu balaartay. soo marka student id saas ayuu ula ekaaday ama meeshii ay fit ku noqotay. soo marka si kalena waad samayn kartaa. marka meesha imaato adoo mid jiidin oo waxba samaynin ayaad laba jeer click ku sii kartaa. soo marka automatically asaa fit garaynaya oo inta space u baahan yahay siinaya. tusaale hadda arrintan ku qoro student id-ga tusaalahaan casmi spreadsheet academy 900 A1 A10. saas hadaan u qoro tusaalahaan aan hadda iraahdo drag aan sameeyo aan ku fit garayo. waxaan hadda meeshaan sameeyay waa student id-gi galaaska tusaalahaan waxay wada dhigtaan English. so sidoo kale drag ayaan sameynaya totalka arday kasta uu keenay. saa ujeedin waxaan qorna hadda student id-gi luqadii ama fasalka uu dhiganayay iyo totalka uu keenay. soo markaad waxaa isku qasan oo aan la kala aqoonin qoraalkii ama ardaygii informationkiisii iyo titlekii. ciwaahan guud mar walba waxaa rabaa inuu ka weynaado ama ka muuqdo ama uu ka bedelnaado, ha ahaato color ha ahaato qaabkiisa
qoraalkan dambe oo ka tarjumayo waayo lama kala aqoonsanayo qofkuna ma fahmayo soo marka da highlight aan saaraynaa adoo leftiga mouse-ka haya ayaad marka highlight-kan kuu soo baxo waxaad samaynaysaa waxaad tegaysaa qaybtan fontiga aan dul taaganahay soo marka b-dan fiiri bold ayaan yidhahdaa markaad ku dhufato ujeedin wuxuu noqonayaa bold ayuu noqonayaa sidoo kale waxaa jira shortcada isticmaali karto markaad highlight saarto waxaad leedahay marka control b soo ujeedin bold ayuu noqday fartana waa weynay kartaa maadaama 12 uu yahay wax ka dhigi kartaa 12 wahay cafwan soo marka 12 ka dhigi kartaa sidoo kale waxaad ka xariiqi kartaa hoosta waxaad u yeeli kartaa border si loo kala aqoonsado keebaa qoraala keebaa title marka waxaan filayaa qaabka inaad fahantay qoraalka loogu qoro sidoo kale loo bedelo cabirka ama size-ka haddii uu ku yaraado column-ka sidoo kale aad u bedeli kartid waxa la yiraahdo title-ka oo aad uga dhigi kartid bold ama far la akhrin karo oo ka duwan qoraalka ay ka tarjumayso ama ka hooseeya sidoo kale waxaan filayaa fahantay qaabka qoraalka loogu qoro Microsoft Excel sidoo kale waxaa laga yaabaa inaadan jeclaan textigan ama fontigan ku qorno halkan soo marka highlight si loo soo xafidana taqaanid marka saan u doorto waxaan imaanaysaa qaybtan fontiga ay ku qoran tahay halkaas oo jeedo hadda waxaan isticmaalaynaa waxa la yiraahdo Calibri soo marka waan bedeli karnaa mid kale ayaan isticmaali karnaa soo marka badanaa Arial ayaa la isticmaalaa laakiin tan way ka weyn tahay ama kuma habboona soo marka aad Arial isticmaalno laakiin aan yarino aan ka dhigno at least 9 way ku filan tahay masha Allah soo marka waxaan filayaa inaad fahantay qaabka loo bedelo fontiga halkaan ka bedeli kartaa waxaa ku jira fonts fara badan laga yaabaa inaadan jeclaanin fontiga hadaan isticmaalayno oo aad jeclaato kuwa kale oo halkaan ku jira soo marka baar adiga kaad ka heshid isticmaal insha Allah hadii la yiraahdo laakiin inta badan waxaa la isticmaalaa Arial-ka iyo sidoo kale midan default-iga ah oo ah Calibri la yiraahdo sidoo kale waxay leedahay light ay leedahay soo marka weynay kartaa sidoo kale waxaad samayn kartaa cabirka fontiga waxa ugu yar 8 ugu yar saa ujeedin markaan 8 dul tago qoraalkii saaid ayuu u yaraaday waxa adkaanaysa xitaa in la aqriyo 9 ayaad ka dhigi kartaa 10 aad ka dhigi kartaa 11 ilaa iyo 72 xitaa waad ka badin kartaa 72 wax dhiba malahan soo marka inta badan waxaa la isticmaalaa 12 la isticmaalaa badanaa laakiin waxay ku xiran tahay wax aad markaas u isticmaalayso ama project aad u isticmaalayso haddii aad u baahan tahay far waaweyn ama far yaryar tii aad doontid ayaad isticmaali kartaa dad 12 ka dhigaysa ama 12 waa dhankaada optionkaas sidoo kale waxaad ka weynay kartaa adiga oo lambarba u baahan qaybtan eedan weyntaas u jeedid haddaan click siiyo farta cabirkeedii waa isbedelaya waa sii weynanaya haddii aan midaan yaristaana click ku siiyo waa yaraanaysa u jeedin soo marka waxaan filayaa fahantay xitaa lambarkan wuxuu dhigayaa 12 haddii aan mid yare taabto wuxuu dhigayaa 10 haddaan ku celsho mar labaad wuxuu ka dhigayaa 9 soo marka waa isbedelaya sidoo kale casharka waxaan ku qaadan doonaa soo jeedin qaybtan title-ka waxaan rabnaa inaan u yeelno color ka duwan colorkan kaleeto hadda waa cadaan soo marka waxaan rabnaa inaan u yeelno color halkan soo jeedin calaamadaas waxa ku qoran painting soo jeedin inta badan waxa ku artaan filaha markii la dhisayo guryaha waxa leeyahay calaamadan nuuriyada ama colorka loogu yeelo guryaha waxay ku jirtaa gasac saas oo kale taa soo marka waxa lagu dul sawiraa gasaci oo colorka uu ka daadanayo hoosna waxa lagu qoray calaamad jaalla waa default-iga calaamadda ugu dambeeyay oo isticmaalo waay markaan colorka dul tagno soo jeedin waa isbedelaya calaamadii isha ku hayo qoraalkaadii waxaan ka dhigayaa tusaalahaan inta badan kana isticmaala aniga colorkaas green-ka oo biyaha isticmaala badanaa soo marka saasna waa samayn kartaa waa ka bedeli kartaa background-ka waxaan filaynaa fahantay sidoo kale waxaad bedeli kartaa font colorkeeda highlight saar ama select saar waxay imaataa qaybtan ku xigta oo ay ku qoranta eeda calaamada gaduudkana ku hoos qoran tahay waxaa halkan hadda eedan ku dhufto wuxuu ka dhigayaa gaduud soo marka laga yaabo inaad gaduud u baahnayn waxaad fiirinaysaa calaamadan soo jeedin falartan hoos yar u jeeda haddaan kale ku siiyo waxa uu soo bandhigayaa color fara badan soo marka aniga inta badan colorkan qaataa laga yaabo inaad gray qaadato oo daaga laakiin inta badan kana qaata aniga colorkaas ay bedeli kartaa xafrana faan sidoo kale qoraalkan hoose waa ka bedeli kartaa oo waa dooranaysaa highlight oo saaraysaa haddii aad u baahan tahay colorkii qaybta kor aad format ku sameeyay mid lamid ah
calaamadii oo ku saaraysa ujeedid kaliya ku sii kartaa soo markaa isbedelaya dad baahan tahay color kaleeto waad samayn kartaa wax dhibo ma laha inta badan waxaa la isticmaalaa greyga inta badan la isticmaalaa ku wanaagsan oo aad iyo aad u wanaagsan hadda kan waa very light soo markaa ka bedelaynaa aan ka dhigaynaa something like this okay sidoo kale waxaan casharkan idinku tusi doonaa waxa la yiraahdo grid line soo jeedid hadda warqadan waxay leedahay isgoosyo fara badan waxaan ka hadlayaa marka isgoos kule waxay tahay column-kan iyo row-gan waa isjarayaan soo jeedin wax walba diil ay leeyihiin laga yaabo inaad jeclaan inaad aniga la mid laga yaabo badanaa ma jecla diilmahan marka waxaa la yiraahdaa grid lines halkan ayaan aniga ku soo diyaarsaday laga yaabo adiga inaysan diyaar ku ahayn laakiin waa inta soo doona qaabka halkan loo soo galiyo hada calaamadan tigta ka qaado soo jeedin wax walba waxay noqonayaan cadaan insha Allah baratika badan samay ku celceli wixii su'aal insha Allah qaybta comment-iga igu reeb tan iyo casharka xiga assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh